wararka naga soo gaaraya magaalada Venus ee wadanka Austria ayaa waxay sheegayaan in nin Soomaaliyeed uu dilay laba gabdhood oo Soomaaliyeed. Si aan wararkaas faahfaahin uga helno, waxaanu qadka telefoon kula xiriirnay goobjooge Cabdiraxmaan Jaamac. Cabdiraxmaan Jaamac, soo dhawow. ودوي ولا الأسمر هذا ودوي ما سنته. markii xiga sidee wax u dhaceen? دماغ السلام يا مركبات مركب لبعض ولا أرين لقنا حوجة dhacday magaalada Fiina wadanka Austria. Arrinkaas waxa weeyaan labada gabdhood ee maanta uu ninka Soomaaliya ku dilay. Labada gabdhood mid kamid ah ayaa waxa la sheegay inay xaaskiisii hore ay ahayd, gabadhna ay u dhashay. Marka adigu ay kala tageen muddo kadib dabadeedna uu soo hanjabi jiray oo la soo hadli jiray ayaa la sheegay. Kulli waqti wuxuu soo kordhaba maalinta maanta ayaa ay noqotay waqtigooda inuu gabadhaas dilo. gabadha kalena gabadha asxaabteeda ayay ahayd oo ay maaragtay guriga timid. Saas ayuu labada gabdhood bannigu ku dilay. Falku wuxuu ka dhacay magaalada Fiina xaafadda tobnaad oo ah xaafadda ajaanibka iyo ay u badan yihiin Soomaalidu. Faafuritan baa la xaafadda magaceeda. Arrin laga naxay weeye oo dadku dhan ay la yaabeen waayo dambana aad bay soo kordhayaan dambiyada ay dhalinyarada Soomaalidu ay ka geysanayaan wadamada Yurubta. gabdhaha waxa ay sheegtay inay gabadhana soo booqatay ee gurigooda joogeen. muxuu sitay uu ku dilay muxuu watay? falku wuxuu ku dhacay mindi ayaa la sheegay. Booliisku waxay soo report gareeyeen inuu mindi ku dhacay iyo wax ay tip ku sheegeen sida tip oo kala loox oo kala inuu ku dhacay. labada gabdhood mid ka mid ah inuu madaxa ka jaray ayaa ay falka lagu daray in la sheegay oo madaxa ka bagooyay banaanka ka dhigay. marka adigu waxa la sheegayaa in uu dadka daraagiska qaata iyo waxyaabaha noocaas oo kala yar ku ahaa ay dambiga geystay. booliska ayaa isla markiiba gacanta ku dhigay oo ugu yimid gurigii falka uu ka dhacay. Marka uu xiran yahay baaritaan ay boolisku ku wadaan. kadib maxkamad bay geyn doonaan adu macluumaadka noocaas ayuu noqon doonaa. Xagga meydka labada gabdhood booliska ayaa isagana haya oo baaritaan ku wada laftigiisa. waqtigooda markay soo dhameystaan waxay ku soo wareejin doonaan jaaliyada Soomaalida ayaa ballan u samaysanaysa insha Allah lagu aasi doono maalmaha soo socda. marka runtii wax argagax leh weeyaan oo dhalinyaradu ay aad bariyaha kan dambe way soo badatay. dhalinyarada alcoholiga ay dilal badan geysanayaan oo iyaga laftigooda shakhsiyaadkooda dadka qoysaskooda ay u geysanayaan iyo waliba dadka kale ee maaragtay cadaanka ah ee maaragtay wadamada kula noolba. marka qaabka ay wax u dhaceen guud ahaan waa sidaas arrin laga naxo weeyaan. waa wax cajiib ah dad Soomaaliyeed oo intay wadankooda ka soo qaxeen soo safray Yurub yimid qurbaha nolol adag ku soo halkan shiilaha ku dega dabadeedna inay waxa noocaas oo kale ay ka daba yimaadaan qoysaskii dadkan soo dirsaday dhaba uga tacsiinayna waa aad bana waa xunahay wala dareemayna waxaad ii sheegtay ninkan inuu gabadh kamid ah isqaba jireen ilmana uu u dhaxeeyay. marka ilmaha yar xaguu jira hadda? waxaa la sheegay galabta caawifidka waxaa la sheegay muddooyinkii hore markay isku dhacu oo aad u batay in dawladda hay'adda la yiraahdo Yugan Amtiga oo ah hay'adda ciyaalka xaraaraysa ay gabadha hore uga qaateenba oo gabadhu ma aysan joogin guriga, ilmaha yar ma aysan joogin guriga oo dawladda ayaa gacanta ku haysay ilmaha markii horeba. marka isla ilmihii ilaa hadda dawladda ayuu gacanta ugu jiraa oo haysata. marka case-kan intuusan dhibaatadan dhicin ka hor ayaa gabadha laga qaatay ilmaha. waa gartay falka noocan nin inuu xaaskiisii hore dila ah dadka Soomaaliyeed ee ku nool magaaladaas ma markii ugu horeysaa mise waa wax hore u soo dhici jiray oo hore loo soo arkay? magaalada Fiina marka loo eego hore uma arkin qof Soomaali ah oo xaaskiisii madaxa ka jaray. dil dagaal iyo waxaasi way dhacdaa oo maaragtay inta carqalada way dhacaan, dhaawac in la soo geysto way dhacdaa, laakiin dhimasho inta ka xasuusto baaha caseska la report gareeyay. laakiin marka loo eego wadankan dadyo wacdaanka ay aad bay u dhacdaa oo tirahan 30 qof ayaa dumar ayaa wadankan lagu dilay oo ragooda ay laayeen sanadkii la soo dhaafay. marka caseska noocan way dhacaan laakiin community-ga Soomaalida wadankan dadku aad uma badna. dad cusub oo tobanada kiisana ugu dambeeyay wadanka soo galiyeen way u badan yihiin. xitaa waxyaabaha ka qayb qaadanaya in dadka dhalinyarada ay wax dilaan waxa kamid ah disparate-ka nolosha oo marmarka qaar ku adkaanaysa oo qofka dusan iimaan lahayn oo uu soo xijin karin aysan maaragtay uusan ilaalin karin oo sharciyada wadanka dadka loo diido ayaa dhacda ama laga daahiyo. shaqooyinka oo ku adkaada, luuqadaha oo ku adkaada ayaa jira. magaalooyinka waaweyn oo laga yaabo inaysan nolol fiican iyo guryo fiican ka helin ayaa jira. marka waxyaabo badan oo isu tegay ayaa dhibaatooyinka noocan sababi kara. waxaas ugu weyn ee aan marnaba excuse loo heli karin waxa weeye dadka alcoholiga inay dhalinyarada oo sida ugu badan ay wadamadan dadka jooga ay u badan yihiin dhalinyaradu inaanay wax badan xakameyn karin oo ay dhibaatooyin badan geysanayaan marka uusan miirkooda joogin. taas way ugu darani
guud ahaan kiisas dagaal ah way dhacaan, kiisas meelahaas dadka caddaanka ay soo duubayaan waad arkaysaa qof Soomaali oo ka dhacsan oo dad dhibaateynaya ama meel bas ah ku dhigan ama meel dad cadaan ah dib u geysanaya. Waa la arkaa video la soo duubo qaar makhaayado dhibaatooyin ka geysanaya, waa la arkaa video la soo duubo qaar iyaga laftoodu islaynaya oo boolisku ay raadinayaan Soomaali kale ay islaayeen ama ay toorre ku dhuftay ama dhaawacay. Waad arkaysaa marka kiisaskaasi nooca asaa u dhigan way badan yihiin, laakiin kan dumarka in la laayo ahay halkan kuma badna, laakiin Jarmalka iyo wadamada kale waa la sheegaa aad ugu badan. arrintan hadda dhacday dadka maadaama ay ku tahay arrin ugub ah oo nin xaaskii ay kala tageen dilay ay ku cusub tahay, sidee ayagu ahaa dareenkooda oo dadka Soomaaliyeed ee meesha jooga arrintan sidee ula muuqatay? والله horta wuxuu caawa galabta ayay dhacday casar gaabkii isla habeenkiina waa lagu jiraa oo dadku wali waagi ugu bariin, balse social media iyo markaad eegto dadka dareenkoodu aad buu maaragtay u bedelan yahay oo waa wax mucjiso ah oo meelaha xitaa wadooyinka fiidkii oo kale markaan dhalinyarada Soomaalida aan sar aragnay waxa xaafada ay Soomaalidu badan tahay aan tagnay balse warwareysanay xaaladdu waa xaalad adag weeyaan oo maaragtay aan la qiimeyn karin. balse waa fal laga filayo inuu dhici karo maaragtay dadku markay noloshu saas oo kale ay uga dhacaan waa falal iman kara weeyaan, falal iman kara burburka iyo wadankii laga maqan yahay laftigeeda ayaa qayb ka qaadanaysa oo maaragtay noloshii ay dadku ku adkaanaysa markay meelaha ka yimaadaan. Marka aad baan uga xunahay guud ahaan kolley berri iyo wixii ka dambeeyana dadku way soo imaan doonaan oo waa la isla arki doonaa insha Allah sida xaajadu noqonayso. aaska iyo waa la soo imaan doonaa maalmaha soo socda haddii alla ka dhigo, laakiin arrinkaas waa arrin aad uga xunahay. boolisku hadda ninkii waa bay hayaan oo maxkamad bay saarayaan u malaynaya inuu bulshada lagu soo dhexdeyn doono muddo intii doonto ha qaadatee, balse waa wax lagu maaragtay quduro qaadan karo oo aan isleeyahay u baahan yihiin dhalinyaradu in lagala taliyo oo ilaahay maaragtay ka fogaadaan daraagiska iyo waxyaabaha xunxuno ay maaragtay dhibaatada ku kalifi kara inay keenaan. wax isxilqaam ah ma jira community-ga iyo culamaa diinada idinla jooga ee ka tirsan dadka Soomaaliyeed waxay isku xilqaameen ay leeyihiin dhalinyaradeena aan kaga joojino drugska ama aan wacyi gelino ama dilka iyo siday u yareeyaan aan u xakameeyaan aan dhinaca diinta iyo aan wacyi gelino waanino wax isxilqaam mid ku jira dadka community-ga ee ku nool magaaladiina? waqtiyadii hore jaaliyad adag baa jirtay oo dhisnayd oo maaragtay arrimaha bulshada aad u dhisi jirtay ka shaqeyn jirtay. meel jaaliyada baa jirtay xarun jaaliyadeed oo ay dhalinyaradu isugu yimaadaan ku madadaashaan, masaajidkii ka furnaa meelaha ay ku ciyaaraan lahaa oo dhalinyarada laga mashquulin jiray waxyaabaha aan maaragtay mukhadaraadka iyo wanaagsanayn. laakiinse muddo kadib beri dhexaas 2 sano sanadii waqti laga joogo jaaliyadii ayaa waxa ku dhacday in la gubay oo dab ka kacay. dabkaasoo ilaa hadda boolisku ay baaritaan ku hayaan cid geysatay oo la leeyahay munsuriyiin baa geysatay mid kale geysatay aan la garanayn inuu sar hadayn. marka xarunta jaaliyadda dadku isugu iman jireen laftigeedu waqtigeedan ma jirto. guud ahaan bulsho Soomaaliyeed oo meel fadhido oo iska warhaysayna ma jirto. meelo bareefaad oo dadku leeyihiin dukaamo iyo makhaayad iyo wax lamid ah mooyaane meel jaaliyada oo dadku isugu yimaadaan oo base ah ma jiro hadda waqtigan la joogo. laakiin kala daadsanaanta ay idinkuna ogtihiin annaguna ognahay ee qurbaha ka jira ayaa maaragtay ayaa halkan ka jirto oo Soomaalidu waxyaabaha ganacsiyada ay gaarka u leeyihiin aad ay isaga xilsaaran, laakiin waxyaabaha danta guud cid u soo jeeda ama maaragtay iska xilsaaraysa oo badani ma jirto. markii sidan oo kale qunbulada noocan oo kale ay dhacdo waa la soo yimaadayo waa laga wada hadlaayo marka waa la buuqaa si wax loo sameeyaa wixii laga gaari karo markaas marka xaaladii dhacdo. laakiin wax istiraatiijiyad ah oo rasmi ah oo cid kale leedahay waqtigan ii sheegi karay ma jirto. waa si rajaynaynaa insha Allah in horumar laga sameeyo waxyaabaha cayn kara. aad buu u mahadsan yahay. kaasina wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Jaamac oo khadka telefoonka iigu waramayay anigoo ah Asmar Cabdi Nuur.